joojinayna waxaan u geli doonaa mas'uuliyiintan sharafta leh nagala soo qayb galay munaasabadda waxaan ugu horraysiinayaa isduwaa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xuseen axmed cawed oo kollay runtii howlo badanna nala qabtay haddaanu ardayda nahay ku soo dhawow isduwada. bismillahi raxmaani raxiim. ugu horeyn barasaanka gobolka Sanaag guddoonka waxbarashada wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag xildhibaana Bokor Shada cali xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynabo ka mid ah guud ahaan maamulayaasha ama maamulaha iyo waalidiinta iyo ardayda dugsiga horyaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi runtii anigu dee guddoomiyihii aarowgii waxbarashadana waynala joogaaye marti sharaftaan ka mid nahay. marka ugu horraysa waxaan runtii hambalyo u dirayaa guud ahaan bahda waxbarashada gobolka Sanaag guddoonka waxbarashada ee wasaaradda maamulayaasha guud ahaantooda ee gobolka waalidiinta iyo ardayda sanadkan gobolka Sanaag oo dhan ayaan horta hambalyo u dirayaa kaalinta mugga iyo miisaanka leh ee ay ka soo hooyeen iyo sharafta iyo karaamada ay gobolka Sanaag u soo hooyeen. waxaanan ku ammaanaynaa wasaaradda waxbarashada mas'uuliyiinteeda maamulayaasheeda macallimiinteeda ayaa guushaas gobolka u keenay oo ardaydaas ay soo saareen ayaa sumcaddaas iyo sharaftaas u keentay. taasaanan ugaga mahad celinaynaa marka ugu horraysa waa koow. marka labaad waxaan u mahad celinayaa ardayda guud ahaantoodba ee gobolka Sanaag ama dugsi sare ha ahaato ama dugsi hoose dhexe ha ahaato. waayo haddii aanay ardaydu dadaalaynin oo macallinku si kasta u dadaalo haddaanu ardayga laftiisuna dadaalaynin oo aanu wixii loo dhiga weelaynaynin oo habeen iyo maalin aanu soo jeedaynin kaalintan aa maanta keenteen inaan gobolka Sanaag hal arday ka dhicin halka gobollada Soomaaliland oo dhan oo kale laga dhacay inaan hal arday ka dhicin iyaga laftooda ardaydu qayb bay ka yihiin iyo waalidiinta dhalay labadaana iyagoo wada socda waa u mahad celinaya runtii kaalintay galeen iyo kaalintay ka geysteen. qolo kastaba meel bay gobolka ka soo annagu berigii ciyaaraha gobollada 2013 gobolka Sanaag aad looma aqoon dad baa Caynabo isku aqooni gobolka Sanaag caynamana gaar buu yaqaanay Sanaagna gaar buu yaqaanay laakiin markii ciyaaraha la soo daayay TV-da laga daawanayay waxa bartay dad badan ee caynamana kaalinta 8aad ama kaalinta wareegyadii ugu dambeysay ay tagtay. maanta lafteeda waxbarashadu in dhaweydba hore u soo socotay ilaa tobankeenu ku jiraa runtii farxad bay noo tahay kaalinta wasaaradda waxbarashadu adbana isu dawayaashu inay isugu hambalyeeyaan kii kaalin wanaagsan keena runtii waan ugu hambalyeeynaa jaamac iyo maamulkiisa iyo macallimiintiisa iyo maamulayaashiisa iyo waalidiinta sanadkan iyo ardayda sanadkan baxayba farxad bay annagana noo tahay iyo sharaf iyo karaamo ay soo hooyeen runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. taasna waxaan u mahad celinaynaa si gaar aan ugu mahad celinayaa barasaabka gobolka Sanaag runtii oo ka mid ah dee horta barasaabkeenna ardaydii u soo kacaysa gobolka Tiin Axmed Maxamed Xaashi Axmed Naasir baa la yiraahdaa maanta in la idin sheego maaha inaad mar kastaba la socotaan barasaabka gobolka Sanaag oo xaflad kasta oo da'yarto ama kuwa waxbarashada ama kuwa ciyaaraha ahaada ama kuwa kale aan waxna baran ciyaarin ee dhalinyarada kale aqoonyahanka ahaadana mar kasta taagan ee waqtigiisa qaaliga uu huro hadday hanti tahay iyo hadday hiil iyo hooba tahayna mar kasta la garab taagan runtii barasaabka gobolka Sanaag oo barasaabada hore kaga duwan arrinkaas mar kasta na waynu uga mahad celinaynaa. taas runtii waan uga mahad celinayaa dhalinyarada Cabdirashiid iyo la xafladda qabanqaabinayay inay shahaado sharafta u soo sameeyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waxaynaan isna ilaaweyn jaamac maxamuud aadan jaac karaaciin iyo faamiligiisa ah mulkiilaha hodheelkan waa markii saddexaad uu hoolka bilaash ku bixiyo mar kasta xafladda qayb uu ka yahay isagu habeenkii ugu horreysay imtixaanka la yeedhiyo wiila soo hadlo wuxuu dhalinyarada xaflad u qabaqaabiya dee geel innaga wuxuu yidhi geel annaga ale cid ku faantu waaye dadkii dee qaar ka dhaceen baa markiiba xaflada la booday moogtahay markaas war kuwii kalaaba faanaya kuwiina aan midhbo ka dhicin maxaa idin aamusiyey xafladana hodheelkale bilaash uga dhiga degdegna u qabta xaflad hadda ma garanaysaa oo xaggaa qurbahan hadda waa laisku hayaayo midiyaha iyo Facebook iyaba la iska hayaa marka iyagaaba inaga xamaasad badan runtii jaamac maxamuud aadanna aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa siduu da'yarta ashaada sharafkana u soo sameeyeenna runtii hodheelka isha Caynaba iyo mulkiilihiisana aad iyo aad baan annagu lafteedu dhalinyaradan qiimaha leh oo iyaguna xafladaha iyo macallin Cabdirashiid iyo ninka qadar iyo xaflad kasta oo horyaal leeyahay dugsiga horyaal anagu waan ka soo baxay lafteedu waxaanu hayn 2005 2006 ardaydii shahaadada ku dhigsan ofiska raggii la siiyay baan ka mid ahay
waxaana ka mid ahayn ardaydii ugu sarraysay sanadka gobolka sool oo dhan hadda idinku dee somalilan oo dhan baa dee maraysaane annagu beriga gobolka sool ayaanu ka mid ahaynaa ardaydii gobolka sool ugu sarraysay waxaana beriga xasan baa haystay xasan garweyne wasiirka waxbarashada ashaadu nagu siiyey arrinkaa waana weli ofriga ku dhegsan tahay horyaal waa dugsiyada qadiimiga ah macallimiinta qadiimiga waalidiinta qadiimiga ardayda ugu qaalisan baa mar kasta ka soo baxda dhallinyarada waxaa gobol ka shaqaynaya iyo kuwa gobollada kale jooga iyo kuwa qurbaha joogana 90% waxay ka soo baxay horyaal aad iyo aad baanu dee dugsiga horyaal dugsiyada kale uga duwan yahay maamulayaashiisa macallimiintiisa iyo waalidiinta imika laftooda wax ka dhigana runtii si gaaraan u ammaanayaa waana dugsigayga wax ku soo bartay maantana inaan de halkii ardaydii kale hal mid ma ardaydana kula dardaarmaya waa soo gabagabeynaya waxaan ku soo gabagabeynaya form 4ka marka ardaydu ay dugsiga dhexe ka baxaan ee dugsiga sare gelayaan gaab baa gala gaab af soomaali baad ka soo baxday ingiriisi baad gelaysaa annaga lafteeda waxaa nagu dhacday qaar badanna berigaa way naga hadheen markaad ingiriisida af soomaaliga ka baxday ingiriisida sanadka ugu horreeya foomamka waxbarashadooda nacaysa ma iskaga tagtaa waad odhanaysaa haddii se aad u adkaysato sanadka dambe adiga 6da subaxnimo kacaya iyo 5ta subaxnimo tegaya waxaan idinka codsanaynaa inaad sanadka u adkaysataanoo iskala beddelkaa yaree dhacay aanu maskaxdiina wareerin ayadaan moodin oo foom 1ka iyo 8kaasi wuxuu leeyahay in yaroo gaabkaana iskaga adkaystaan leeyahay una dhabar adayga dugsiga sarna waa idinka doonaya guul soo hoysaan gobolka horyaal halkan qura maahe gobollada kale ee qaarkood inaga ardayda qaar ka mid u bedesheenna wankay ka galeen sida la soo sheegayo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa guddoonka waxbarashada mar labaad macallimiintiisa iyo waalidiinta iyo 51 arday ee sanadkan qalin jebinaya iyo qabanqaabayaasha xafladdan quruxdii qiimaha badan iyo mulkiilaha isha caynaba dhammaantood waxaa leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين يقولون بعض الصحافة عدن ما تقول هلك كهذا الله وأنا ورك أدونك قارسينيني عيدين ما دعوتين بركة جودهم بعض الصحافة تسكت دوبنا هذه أدونك بهذا العلية عينا ببش إنسان ترى قيم كحفلتنا ونما هذا العلينا برسا كنا سقلفت سنة شرفتنا يكون مع موسى هذه أدونك بهذا العلينا أحمد محمد حاشي أحمد ناصر وبالله التوفيق